dhalinyaro isku abaabushay ayaa waxay saakaarooriyadii hore socod luga ka soo bilaabeen Arabsiyo ilaa iyo magaalada Hargeysa socodkaasi oo ay ku xusayeen mujaahidiintii sanab markii uu socodkaasi soo dhamaaday ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen hotel guuleed ee magaalada Hargeysa waxaana yiraahdeen waxaanu saaka markay saacadu ahayd saacada Hargeysa amaba Afrikada bari todobadii oo rubucla socod dheer ka soo bilownay magaalada la yiraahdo Arabsiya socodkaas oo aanu uga dan lahayn amaba aanu ku xuseynay mujaahidiintii wadankan aynu maanta joogno u soo dagaalamay mujaahidiintii SNM ee wadankan aynu maanta ku raaxaysanayno dhiigooda qaaliga ah horay socodkaasi oo aanu ahayn koox amaba dad gaaraya ilaa 25 qof baanu ahayn annagoo ka soo bilownay Arabsiya kuna dhamaynay controlka magaalada Hargeysa socodkaasi wuxuu qaatay muddo dhan 5 saacadood iyo 45 minute wuxuu qaatay 6 saacadood oo rubucla socodkaas dadka badankiisu 25 dad badan baa markay soo gaareen meelo dhexdaasiya adigu 4 imika halkan fadhida iyo inaan imika naga maqan 5 soo gaarnay controlkii waa ilaahay mahadi waxaan uga dan lahayn socodka inay mujaahidiintii SNM ogaadaan inay jiraan dad u og abaalkii ay u galeen dad u og wixii ay wadankan u galeen oo aanu socodka dheer oo amarkii ugu horeeyay oo socod inta leeg lagu qaato oo 6 saacadood waxaan kaloon doonayaa inaan halkan uga hambaliyeeyo dhammaan dhalintii socodka dheer la qaatay oo imika bidixdeeda fadhiyo Abdulrasaaq Ibrahim Cilmi oo bidixdeeda fadhiya midigtayda oo fadhiyo inaan kala adeerka u ahay Abdi Jimcaale Abdullaahi iyo Abdullaahi Fuad Abdullaahi waxa isna naga maqan afartaydii soo gaaray Chief Caaqil Maxamed Mooge oo imika aqalkii jooga anigoo u ciyaari jiray gobolka Togdheer markii ugu dambeysana aan ahaa kabtankii kubadda cagta ee gobolka Togdheer sanadkii 1980 oo ay shalay toole ay Hargeysa ka furmeen ciyaarihii gobolada aad baan ugu boorinayaa dhalintana waxaan leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen Xamse Jaamac Xuseen telefishinka caalamiga Star Hargeysa